dawada kuna soo dhawaada markale barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee garqaadmida qodobada wararka waxa ugu waaweyn maanta. wasiirka dastuurka ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay shir u dhaxeeya hay'adda UN waliba qaar ka mid ah wasaaradda xukuumadda ee Ra'iisul Khayre. madaxda dalalka Eritrea, Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay maanta kulan saddex geesood uga bilowday magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea. iyo waliba sheekh shaakir oo sheegay in dowladda dhexe ay ka shaqaynayso in khilaaf weyn uu ka dhex dhacay isaga iyo waliba madaxweynihii maamulkaasi galmudug ee Axmed Ducaale Geelle Xaaf. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Dahir Geelena waxa uu sheegay in dastuurka dalka iyo waliba qaabka ay dowladdu arrimaha maamul goboleed u waladeynayeen kuwa aad isku khilaafsan xilli uu waraysi siinayay mid ka mid ah TV-yada gudaha ka shaqeeya. iyo waliba muwaadiniinta gudaha dalka Israa'iil oo loo ogolaaday inay u safri karaan gudaha dalkaasi Sacuudi Carabiya iyadoo tan ay noqonayso markii ugu horeysay ee taariikhda abid ay bilaabato. qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaan barnaamijkeena maanta garqaad media ku soo qaadan doonaa kuna falanqayn doonaa intaan ugu dhigay. haddii aan ku bilowno daawadayaal, shir u dhaxeeya wasaaradda arrimaha dastuurka, amniga iyo cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee federaalka iyo qaar ka mid ah hay'adaha UN ayaa maanta waxa uu ku qabsoomay xarunta wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. shirka uu gudoominayay wasiirka arrimaha dastuurka Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa waxaa looga doodayay dhamaystirka dastuurka iyo sidii xal looga gaari lahaa qodobada masiiriga ah ee u baahan in wadaxaajoodka siyaasadeed laga gaaro. ugu horeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka Maxamed Abuukar Zubayr ayaa waxa uu ka qaybgalayaasha shirka u sameeyey soo jeedin ku saabsan qorshaha guud ee wasaaradda ee ku aadan dhamaystirka dastuurka bartamaha sanadka 2020. wasiir Saalax Axmed Jaamac oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in xukuumadda federaalku ay go'aansatay dhamaystirka dastuurka iyadoo loo marayo buu yiri hanaan wada tashi oo loo dhan yahay. waxaanu go'aansanay buu yiri dhamaystirka dastuurka ninka oo kaashanayna wasaaradaha dowladda dhexe iyo kuwa goboleeda ee ay qusaysinayso dharaandhiriyeen qodobada dastuurka ee u baahan in xal siyaasadeed laga gaaro sanadkan. waxa aan doonaynaa inaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo wada jira inaan dastuurka qabyada tirno, ayuu yiri wasiirka. dhan kalena waxaa shirka ka hadlayay agaasimayaasha guud ee wasaaradihii kasoo qaybgalay shirka iyo weliba mas-uuliyiinta ka socota hay'adda UN iyagoo sheegay in wasaaraddu dastuurku kala shaqayn doonaa fulinta qorshaha u adeegsan sanadkan. ugu dambeyntiina waxaa lagu ballamay in dardargelinta howlaha dhamaystirka dastuurka iyada oo loo shaqeynayo hanaan wada tashi oo lala sameynayo shacabka Soomaaliyeed. wasaaradda dastuurka ayaa inta badan waxaa lagu eedeeyaa inay gaabsi ka gashay arrimaha ku aadan dhamaystirka dastuurka ee qabiyo qoraalka ah, taasi oo la rabay baa la yiri in muddada hore ee sanadadii horeba ay dhamaystirto. walow xukuumadda Ra'iisul Khayre uu marar badan ku celceliyay in dastuurku uu yahay kan ugu weyn isla markaasna loo baahan yahay in qaab wada tashi loo xaliyo. waxayna wasaaraddu ugu dambeyntii maanta ku dhawaaqday in dhamaystirka dastuurku uusan dhaafi doonin isla sanadkan, taasi oo ah muddo xileedka ugu dambeeyay ee Ra'iisul Khayre maadaama 2021 horaanteedii la geliyo loo dareeri doono doorasho. dhan kalena magaalada Asmara ee dalka Eritrea waxaa maanta shir uga bilowday madaxweynayaasha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea iyadoo uu garoonka diyaaradaha ay kusoo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Eritrea Aziz Afwerki. safarka madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa ku helinaya agaasimaha madaxtooyada Ambassador Cali Fiqi, safiirka Soomaaliya midowga Yurub oo inta badan ba ka harin madaxweynaha marka uu aadaya Asmara iyo wakiilka gaarka u qaabilsan Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadan. madaxweyne Farmaajo iyo wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Eritrea ayaa waxaa haatan u bilowday wadahadallo saddex geesood oo ku qodobo iskaashi iyo weliba xiriirka u dhexeeya saddexda dal. inta kulamadan socdaan waxay madaxdu qiimeynayaan baa la yiri midho dhalka tallaabooyinkii la qaaday si loo xaqiijiyo isu furnaanta dhanka diblomaasiyadda iyo weliba socodka bulshada gobolka, mideynta qorshayaasha lagu wiiqayo argagixisada iyo weliba xal u helista caqabadaha ku xiran iskaashiga dalalka gobolka. horaantii shalay ayay ahayd marka bartiisa Twitterka uu kusoo qoray wasaaraha dalka Itoobiya in kulan 3 maalmood socon doono uu ka furmi doono magaalada Asmara, kaas oo u dhexeyn doono buu yiri madaxweynayaasha Soomaaliya, Eritrea iyo weliba isagoo sheegay inuu noqon doono maalmaha ay joogaan Asmara maalmo qurxoon isla markaasna soo dhaweyn qiimo badan ay kala kulmi doonaan. kulankan
ayaa waxa uu diiradda ugu weyn lagu saari doonaa un kaliya iskaashiga saddexda dal iyo weliba isku furfurnaanshaha saddexda dowladoodba, iyadoo arinta ugu weyn ee kulankan looga hadlayay uuna kaliya tahay arrimaha diblomaasiyadeed iyo isu furnaanshaha saddexdaasi wadan oo yeeshay wadaxaajood ku aadan isu socodka dhanka diblomaasiyadda, furnaanta dhanka ganacsiga iyo weliba arrimo kale. dhanka kalena Sheekh Maxamed Shaakir oo ahaa madaxii xukuumadda Galmudug ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay inay ka dambeysay khilaafkii soo kala dhexgalay ahlu sunna iyo weliba madaxweyne Xaaf. Sheekh Maxamed Shaakir ayaana sheegay in ujeedada ay dowladda ka lahayd arrintaasi ay tahay in Galmudug ka dhisto maamul ay kaligeed samaysato. Sheekh Shaakir ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay inay doonayso inay Galmudug ka dhigto xaafad ka tirsan Muqdisho, sidoo hadalku dhigay mar uu wareysi siinayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Dowladda waxay rabtaa anaka oo ahlu sunna ah inay kala cararto Galmudug oo ay ka dhigto xaafad kamid ah Muqdisho. Xaaf iyo anaka si aan iskhilaafno dowladda ayaa ka shaqeysay ayuu yiri Sheekh Shaakir. dhanka kalena waxa uu sheegay in xildhibaanada lasoo xulay ee dowladda dhexe u sheegtay inaysan wax xiriir la samayn karin ahlu sunna, isagoo tilmaamay cidda aysan ahlu sunna xiriir la lahayn ay kaliya tahay buu yiri al-shabaab. dadka aan xiriirka la lahayn waa shabaab, ma yeelimayno mana laga aqbalayo cid xiriir la leh al-shabaab ama shabaab lagu tuhmay inay deegaankani madax ka noqoto ayuu yiri Sheekh Shaakir. Sheekh Maxamed Shaakir ayaana tilmaamay in dowladda Soomaaliya wadato musharax iyada u gaara, isla markaasna ay wax kasta oo sharciga ka baxsan u sameynayso sidii uu guuleysan lahaa musharaxnimadiisa. hadalka Sheekh Shaakir ayaana ku soo aadaya xilli uu meeshii ugu sarreysay gaaray khilaafka ka dhexeeya ahlu sunna iyo dowladda dhexe, waxaana laga yaabaa inay dhuusamareeb ka soo baxaan laba madaxweyne oo isgarab socda haddii aysan wax iska bedelin sida hadda xaaladu tahay, iyadoo ay sii jirto in madaxweyne Xaaf gaalkacyo ka wado dhismaha Galmudug kale oo ka madax bannaan dowladda iyo weliba ahlu sunna, taasi oo god kusii ridi karta caqabadaha iyo weliba guushii laga sugayey in madaxweyne loo dhan yahay uu kasoo baxo deegaanadaasi Galmudug. waxa ay tani noqonaysaa in lamid dhabarjab ku ah arrimaha geed socodka nabadeed iyo weliba midda dowladeed ee deegaanadaasi Galmudug. dhanka kalena wasiirka hore wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geel ayaa mar uu ka hadlay sababihii uu xilkaas isaga casilay iyo waxa uu salka ku hayay kala aragti duwanaantii u dhaxaysay isaga iyo weliba dowladdii uu ka tirsanaa. Daahir Geel oo wareysi siinayay TV-yada gudaha ayaa waxa uu kaga hadlay waxa ay isku qabteen madaxdiisa, isagoo meesha ka saaray in wararka sheegay in casilaadiisa ay ka dambeysay inuu ka madax adeegay amarada madaxdiisa. ugu horeyn, aniga waxaan aaminsanahay buu yiri kala dambeyn la-aanta qofka hoose ka imaanaysa inay tahay arrin reer baadiyanimo iyo oo ilbaxnimada kasoo horjeedo. xafiis marka la joogo laba mid ayay tahay in la isla shaqayn karo oo qofka hoose la shaqayn karo qofka ka sareysa, haddii uu la shaqayn waayana inuu meesha baneeyo, laakiin inuu meesha joogo oo amar diido waa dhaqan reer baadiyanimada ah. weli ma dhicin madax iga sarreysa inaan amar diido na dhex marto, laakiin waa kala aragti duwanaan karna ayuu yiri Daahir Geel. wuxuuna sheegay in madaxdiisa ay wada shaqayn jireen oo ay ismaqli jireen, aragtida la isdhaafsan jiray, balse aan weligiis wax gadood ah ka dhicin ilaa ugu dambeyn oo dowladda shaqadiisa la dalacsan uu shaqada isaga tegay. sida uu yiri mar la weydiiyey waxa ay isaga iyo dowladdiisa ku kala aragti duwanaadeen, ayuu xusay in markuu xilka ka tegay uu 4 qodob u yeeshay shacabka u sheegay shacabka, kuwaas oo kala ah buu yiri habka dowladda federaalka Soomaaliya ula macaamishay habka siyaasiyiinta deegaanada ee kuwa Muqdisho loola dhaqmay, habka saxaafadda loola macaamilay iyo weliba siyaasadda arrimaha dibadda oo halbowlo u ah dowladda. waxa uuna sheegay in dowladdu ay isku qabteen guud ahaan bahnaanka dalka lagu maamulayay. dowladdeeda waxay jecleed siyaasad adkaatay iyo laga adkaaday, awood meel jirtay iyo meel aan awoodi aanin in loo kala saarin. awood dowladeed waxa u aqaan midda dastuurka waafaqsan, awoodda qoriga ka timaada ma aqaan. hanaanka dowladda loo wado oo la isugu haynayo oo la isku maslaxayo fikradda ay ka qabtay iyo anigoo waxaa inoo dhexeysay buu yiri 180 digri. waxa uuna sheegay inay taasi keentay in isaga iyo weliba madaxdiisa ay kala aragti doonaada. ugu dambeyn, daawadayaal Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horeysay muwaadiniinteedu ogolaan doonto inay u safraan wadanka Sacuudi Carabiya, taas oo ah astaantii ugu dambeysay oo lagu hanaajinayo xiriirka labada dal.
hase yeeshee Sacuudi Carabiya ayaanan weli ku dhawaaqin waxa ay dhinaceeda sameynayso. Israa'iil iyo Sacuudiga ma lahan wax xiriir ah oo diblomaasiyadeed, balse cabsida ay labadu ka qabaan Iiraan ayaa haatan isku soo dhaweynaysa sida qoraalka lagu yiri. Waxaa jiray xiriir hoose u dhexeeya Iiraan kaas oo ay kaga hadlayeen sidii loo hortagi lahaa saameynta Israa'iil ay ku leedahay gobolka. Israa'iil waxay rajo weyn tahay in muwaadiniinteeda ay u safraan Sacuudiga, gaar ahaan kuwa doonaya inay waajibaadka xajka ay gutaan ama howlo ganacsi u tagaan. Sacuudiga ma uusan hadlin hadalka ka soo baxay Israa'iil, waxa ay u muuqataa in Sacuudigu iska dayayo in uu la yimaado siyaasad furfurnaan. Waxuuna Sacuudiga bilaabay dalku gal loogu talagalay dalxiisayaasha, balse muwaadiniinta Israa'iil xaq uma lahan dalku galkaas sida lagu yiri. Waxayna arrintani tahay mid isku soo dhaweynaysa labada dowladood, iyadoona Israa'iil ay arrintani ku dhawaaqday walow ilaa hadda Sacuudiga uusan wax qoraal ka soo saarin. Taas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.